qaybihii dhexe ee barnaamijka bandhiga ayaan isla soo gaarnay gobolka shabeellada hoose weli waxaa ka soconaya weeraro al-shabaab ay ka geystaan qaybo ka mid a degmooyinka gobolkaasi laakiin ciidamada dowladda ayaa ku leh fariisimo waaweyn waxaana mar walba ay ku dadaalayaan la dagaalanka kooxaha al-shabaab ee halkaasi ka geysta falal ammaanka gobolka lid ku ah dhowaan kulan looga hadlayay amniga ayay ku yeesheen deegaanka qoryoole ee gobolka shabeellada hoose wariyaha telefishinka universal cabdiwali online ayaa warbixintan ka soo diray kulankan oo ahaa mid looga hadlayay xoojinta ammaanka iyo dardargelinta howlaha horyaala maamulka degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose ayaa degmadaas waxaa ku yeeshay saraakiil ka socota ciidanka amisom oo halkaas gaaray kulanka oo ahaa mid saacado badan qaatay ayaa markii uu soo idlaaday waxaa barnaamijka bandhiga tv-ga caalamiga ah ee universal uga warbixiyey waxyaabihii ka soo baxay kulankaas iyo xaaladda guud ee iminka ka jirta degmadaas guddoomiyaha degmada qoryooley sid cali ibraahim xasan dadka deegaankan degan ay u helayeen amni ay u helayeen dhan kasta oo horumarkeeda ka sameyn beerada tahay xoolaha tahay haddii ganacsi uu yahay waxbarashada isboortiga intaba waan ku howlanahay in aan dardargelino aan shaqa la taaban karo aan ka sameyn hadda masha allah markii imaanin maanta wax badan difference u dhexeeyo dhanka amniga haduu yahay dhanka horumarka deegaanka isboortiga haduu yahay dhanka isdhexgalka bulshada sidii bulshadii iyo amniga iyo ciidankii maamulkii isku xir lahaa guud ahaan hadda waxaan howl dardargelin aan ku wadanaa dhanka amniga si aan u tayeen lahayn wadooyinkiin aan u hagaajin lahayn ayaan ku howlanahay taas waay waa gartay guddoomiye wafdigii saraakiisha ahaa ee yimid degmada kulamo ayaad yeelateen maxaad ka wada hadasheen waxaan ku wada hadalnay guud ahaan in amniga deegaankan wixii maqan in gacanta oo degmada lagu soo celiyo oo degmada ay hoos timaadaan tuulooyinka degmada hoos yimaadaan iyo dhanka kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka in dib u hagaajin lagu sameeyo wax allaal wixii geeda soo galay wadooyinka meelihii ka go-een in la hagaajiyo oo dib u hagaajin lagu sameeyo wadooyinkii sidoo kale magaalada waxay leedahay biyo shuqro ciidan loogu talagalay in markii roob dao ama biyaha wabi markay soo baxsoo kale inay go-aan kale meelihii lagu kadan lahaa biyahaas biyushuraas in la jaro oo la qalabeeyo si oo ciidii loogu saar lahay halkaas baldoosada loo gelin lahaa arrimahaasaan ku wada hadlaynay yani guddiga maanta imaaday degmada soo gaaray ma saraakiil ka socota amisom oo keliya ayay ahaayeen mise saraakiil kale oo waxaa la socday caddaan ah oo ka socda dowladaha kale ee caalamka qolo kale oo bangarafly oo iyadana ay la shaqeyso amazon oo inta badan logistigada u qaabilsan amazon la socday nin caddaan ah oo maraykan ah waaye marka ninkaasaan timida guddiga amazon waa gartay kulankiina waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo kasoo baxay oo hadda la sheegi karo maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah in isbuucan dhexdiisa inay bilaaban doonto howl dib u dayactir wadada dheer shalambad kasoo bilaabata ilaa qoryooley soo gaarayso taas oo aan helin muddooyinkan ugu dambeysay in dayactir wadada hesho in wadada hadda alxamdulilah saad ka warqabtaba in wadooyinka inta badan waxaa xiray geedka alkorobka lahay wadada markaas habeesan ma jiraan marka wadadii ayaa rabnaa in hagaajino aan geedahaas aan ka qaadno aan nadiifino markaas wada roolada makiinada roolada lahay oo meelaha ka go-an inay kabaan oo ay buuxiyaan oo wadada ay ka dhigaan wado sax ah oo degmada hoos imaanayso oo dadkiina maanta wadooyinka u mari lahayn inay si fiican u maraan wadooyinkoodii isku socodka bulshada isku socodka gaadiidka ganacsiga inuu deegaanka inuu markaa meel la taaban kara aan ka fahmana rabnaa isbuuca dambe insha allah ilahay idinkiisa waana suurtagelay waana dhamaysana qorshaas wuuna bilaaban doonaa sida ugu dhaqsaa badan wada shaqayn intee la ka dhexayso idinka maamul ahaan iyo shacabka degmada qoryooley wallahi aniga mar walba waxaan ka tirsanaa shacbiga matalaa ayagaan u adeegnaa danta gaar aniga waxaan har iyo habeen waxaan taagnaa in bulshada deegaanka iyo maamulka inaan ka shaqeyno danta guud waayo haddaan shacabka nala shaqeyn lahayn tallaabo ma qaadan lahayn aniga shacabkaan kasoo baxnay marka horeba shacabkaan matalnaa shacabkaan aan hoggaan u nahay ayagaan u adeegnaa adeegayaashooda nahay waa gartay maamulkiina ma ku guuleysateen in aad xaqiijisaan ammaanka degmada iyo hareeraheeda maadaama dhowr jalo hore ay jireen weeraro ay xarakada al-shabaab kusoo qaadayeen deegaanka guud ahaan soomaaliya ayaan la midnahay amniga gaar ahaan degmada qoryooley
gobolka shabeellada hoose degmo waay maanta waxaan dhihi karaa degmada keliya oo maanta amni ku naalan karta horumar dhan kasta ka socda ayo dareemi kartaa degmooyadan waxaa la qabtay xilliga 6 sano ka hor ama 6 sano ka hor madalada la qabtay ilaa maanta degmo oo lala wareegay oo la qabsaday qolada nabadiidka ma jiraan ma dhicin waxaa habeen u taaganahay in aan ka sifayno tuulada jooga inaan tagno aan qabno amniga aan kusoo dabalno maamulkana aan gaarsiino sadarteed marka waa ku howlanahay alxamdulilah hadda maanta waxaad dhigi kartaa ama qof kasoo wareysan kartaa degmada qoryooley amnigeeda waa sidee degmada qoryooley maalintii wax dili ma ka jiraan qaraxyo ma ka jiraan waaba dhigi kartaa cid alal intii ku nool deegaanka waareys waa la yeelan kartaa alxamdulilah waxaa aniga ciidamadii shacbiga isku xiran information iyo xog iyo horaan aan ka shaqeyn inta badan ciidamadan iyo shacabkan aad isku xiran yihiin taas marka waxaan ka gaarnay guul lama daawan karo amniga degmada qoryooley waa high aad u sareeya maamulkiina lacagaha canshuuraha aad ka qaadaan ganacsatada degmada ma jiraan lacago aad dib ugu soo celisaan magaalada oo aad ku dhistaan kaabayaasha kale ee magaalada ay waxyaabaha kale muhiimka u ah why not anaga shacabkan kuma jirnaa sida hore ku sheegnay lacagtaan soo qaadna shurta aan ka soo qaadno inta badan waxaan ku maraynaa ciidankaas tan kale dib ayaan ugu celinaa sida iskuullada isbitaalada in wadada marka magaalada dhexda oo kale si loo jimin lahaa wadooyinkii loo hagaajin lahaa ciidan markii laga doono kale in magaalada la hagaajiyo laga shaqeeyo adi waxyaabahaas inta badan geed sida nadaafada oo kale arrimahaas oo kale la dagaalna cidna mana caawiso waxa ashurtaan kasoo qaata degmadan ku celinaa inta kalena waa ciidamadan gaarsiinaan brand waa gartay magaalada waxaa ku sugan ciidamo booliis ah oo dowladda federaalka ka socdo mise ciidamo oo adinka sameyseen oo madani ah ayaa ka jira magaalada madama waa booliis local booliis waxaa lahay waay oo ciidamada deegaanka waaye ayka booliis ah ayka military ayka daraawiisha ayka nabasawad ah inta badan arag intaasa ku shaqeynaa ciidamo kor laga keenay mar walba waxaa dhibaateen deegaanka bulshada marka qofka ciidanka waxaa la rabaa inuu bulshada kasoo dhacdo uu adeega inuu ka shaqeeyo markaasaan dhihi karnaa waxaan gaarteen ama waxaad qabateen ciidanka markaas lagama kara wax loo sheega laakiin ciidan kor laga keenay mar walba dhibaatada deegaanka ka shaqeeyaa wax kale kama shaqeeyo in oo mar walba u taagan yahay inuu dadka deegaanka dhibaateeyo uu baado waxaasoo ka shaqeeya laakiin markii ay hebele wiilkeeda way kan qof kalma ku dhacayo hooyadiis waay eediis waay walaalkiis waay saa darteed marka waxaan garab igaasho unahay inaan kuwan aan tageyno aan qalabayno aan mar walba aan geesaha ka taagnana maamulka diyaar u yahay qoryooley waxa ay qayb ka tahay degmooyinka gobolka shabeellaha hoose ee haatan lagu tiriyo in ay dhanka amniga kaga sareyso degmooyinka qaar ee gobolka shabeellaha hoose walow ay mararka qaar jiraan weeraro xarakada al-shabaab ay ku qaadaan halkaas cabdiweli cali online barnaamijka bandhiga tv-ga caalamiga ah ee universal gobolka shabeellaha hoose cabdiweli online ayuu ahaa warbixintaasi kasoo diray gobolka shabeellada hoose